أنا وعينيا ولا الكيسانة على يقول لا وأنا سودو لي وأيان دروي إنه ما ستعلوي dadka Soomaaliyeed ee maanta imaqlaya waxaan hawada u soo marinayaa arrin aad iyo aad xasaasi ah oo laga maarmaan waxaan hor yaalla dawlad horaan jabinay wixii ka dambeeyay dawlad fiican waa dhisan weyn sababta waxa weey duminta naqaanaa ee dhismaha ma naqaan وإن كنت حدرنا مر دمبه إن أنا دولة من وإن نسكي إلى لنا قوة اسكود يا إن الله سو استعماله أو شيء سو استعماله أن دونين إن أن دولة بوحدة وعقيدة كنت هاجن أدون كلا جان كهذا النقل wararka intooda badan waxay u dhacayaan warar Soomaalinimo annaga waxaan nahay reer Hiiraan waxaan ka kacnay xaq iyo xuquuq reer Hiiraan ka maqan ayadiyana baadi goobkeedu ku jirnaa waxaan rajaynayaa inaan si fiican u dhameystiro إلهي هدو يرادو ريهيرا وحاو شيغيا حداد دونيسان إن مقعينا أو جرو مسيركينا أو جرو ميل والبو أجوكتان مدى هذا هديك لي سيدا ما أنت تطلع إيمانيس إن لك لغيبيو أن الحكومة إن لك الغيبيو ووحي عرورتين عن سنلين دادك لي عرورتو دا سيان تاس وحي كينيسا مرك أركا سيدي هيران يوطال وجيغا إيلاده وحقبت كي لقربي إيو هرمار كي لقربي إيو فرحي ومد فرح قليل لها أيام بعمقن waxaan ka soo tagay dad iyo dal baaba dhibaataysan dhibtaasna waxay ka timid mas'uuliyad xumo maamulka ragahaya isbitaal nooma dhisna caafimaad ma jiro waxbarasho ma jirto beerihii abaara ku habsatay jilaal xoolihii waa dhamaadeen wax bini aadana oo maamul sheegta oo ummadaas baaba'aysa u soo jeeda ma jirto waxaan leeyahay marka dadka mas'uuliyiinta oo mas'uul isku sheega ah ee aan la dhihi karin waa mas'uuliin hadday dadkooda wax tari waayeen dadkoodana soo raaci waayeen sidee rabaan dadka inay ku hogaamiyaan daraad waa maqlay wax dabageed oo ku hadlay walaalkay aqoon darra u geys qofka anna waa caynaya oo walaalkiisana على يقول لا وأنا سودو لي وأيان دروي إنه ما ستعلوي نكى يقولي قال دقنا أولا شيء وبتلي سديدة نكلا وبتلي سقادنا يا وحونا الربع إنه ضدك وقامي معقول ما هدا عايت أنت أفكار عايت أنت هذا أسكله أنا ما عايتمو لكن وحن كلها هاي مسؤولية ده هاي سنين أقل مماهي أنت أسوأ هاي دير عندما كسر نقطة برنامج كأمد الصوماليات صومالي لبعض هذا ما أنت هي سوى قرن كرتان
weli lagama fariisano lama dhihin dhibaatadan haysa xaggee ka timid dhibaatadan haysa waxay ka timid ma aha madaxweynayaashii Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad kadib iska bedelay dalka inay wada xumaayeen waa fiicnaayeen laakiin dhibtu waxay ka timid xilligii kala guurka annagoon soo marin ayaan dawladnimadii ku boodnay xilliga kala guurka marka wuxuu leeyahay astaamahaas oo la buuxinin haddii dawladnimada aado dawladnimadii ma dhismayso mar walba waa jaban tahay cadowgii ummadda Soomaaliyeed oo ka faa'iideysanaya dawladdaas jaban waana og yihiin internationalka waxa laga booday ee mar walba ay dawladda ka dhismi laada waxa kamid ah haddaan fasiro xilliga kala guurka in la habeeyo sharcigi in la habeeyo baarlamaankii in la habeeyo ciidamadii haddaan waqtiga xilliga kala guurka inta la dhisin dawlad looma gudbi karo hadda waxaa taagan ciidamadii oo kala daadsan baarlamaankii oo fadlan ku shubo iyo sharci oo jirin maxaa dhacay Courta Supreme nooma dhisna ama Supreme Court wax la yiraahdo meel la aado iyo meel la wajaho midna male marka arrimahaas oo dhan laga booday dawladnimada lagu degdegay dawladnimadii lagu degdegayna waxay keentay in faraqa la isku dhago haddii sharci lagu kala bixi lahaana sharciga oo jirin haddii ummadda sharci markuu jiro waa kala baqdaa maxaa dhacay sharci sax markuu jiro qofka waxa la taagayaa maxkamad dambigiisu qaadanaya hadduuna sharci jirin dalku waa baaba hadduusan ciidan jirin waxa meeshan yaalo sharci ciidanku u dhisan oo ah ciidan hadduu jirin dawlad ma dhismi karto dawladana ma istaagnaan karto hadduuna ciidan jirin duruufahaas oo dhan marka waxay ka bilahaayeen dawladda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed horumarka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa marka in waxaas dib loogu noqdo oo la saxo si loo helo dawlad cageheeda isku taagta ka adag cadawgeeda magacii sharafka ummadda Soomaaliyeed naga kacdoonka shacabka Hiiraan la yiraahdaa kama tanazulin arrintii aanu istaagnay in walba uu dhagahaaga haddaba ku hayso naga dad u yimid in la gato maahin waana ka weynahay in la gato lacag waxay tarta male karaama wax tarta sharafa wax tara masiirka ayaa wax tara waxaan raadinaynaa karaamo iyo masiirka ummadda reer Hiiraan marka lacagba ma goysada qaymo lamida ma la helayaba intaas in marka dadku iskaliyo waxbay gadanayaan waa la gadanayaa waxaas dadka maskaxdooda inay ka saaraan raba waxaan nimid xamar waxaan u nimid dawladda heshiiska noo wada socda heshiiskaas waa mid u faa'iideynayo ummadda reer Hiiraan heshiiskaas wuxuu noqon doonaa mid labada dhinacba laga istaago heshiiskaas heshiis iftiin u soo baxay oo noqon doono ummadda reer Hiiraan waxaa kaloo meesha la garab dhigay nimankii waa la xirxiray nimankii dhibaatay ku jiraan cidna ma xirin ayaan daro dadka warkaas wada si fiican aan naloo soo dhaweeyay oo sharaf leh gogol qurxan oo gogol Soomaaliyeed
ayaa naloo fiidiyo fariisanay annagana dadaalkayaga wuxuu noqon doonaa in aan ka dadaalno inaanu qaranka dumin inaan ka dadaalno wixii duminayay inaan nira ka joog waxba ma ogin Soomaaliya dhibaatadan 40 sano ay ku jirto waxa keenay qarankii aan duminay mid kale yaan la dumin inta waxa ay dheer waxa waaye inaan ka talino samaha Soomaaliyeed inaan ka talino dadka Soomaaliyeed oo aan ka turjurno baahidooda dhinac walba ay tahay waxbarasho haday tahay haday caafimaad tahay iyo haday dhaqaale taaba waxa aad u badnaa baarlamaan dhan oo soo dhisanay inuu ku soo dhismay laaluush xaraan meesha markuu yimid oo xaraan dayday asagan Soomaalidu waxay u bixisay magac la yiraahdo fadlan ku shubo intay jirto baarlamaan la yiraahdo Soomaaliya inay hagaagtayaan laga yaabay hadda waxa yaala oo xamar ugu imid isqabad dawladda waxaan u taaganahay in isqabadkaas aan ka dhax raadino heshiis Soomaali inay meel wada aado in la isu tanaasulo waxa adiga aad la ciisoon tahay ama la xanaaqsan tahay ummadda Soomaaliyeed dhibaato ka soo gaaraysa marka dadka in loo tanaasulo oo shacabka loo tanaasulo oo gadaal wax loo fiiriyo ay xaqiiqadu dhabta ah nin walba haduu meeshiisa isku adkeeyo marka oo san dadka fiirin waxay noqonaysaa dana shakhsiya in dadka iyo dalka loo baabi'iyo waxaan annaga mar walba u tanaasuleynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan shaqo la qabanaynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan u taaganahay qaran inuu dumin dambe waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweyne Farmaajo sidoo noo soo dhaweeyay ee sharaf kale mahad celin weyn oo balaaran aan ka bixinayaa ummadda reer Hiiraan oo dhan waa u sheegayaa in si sharaf leh oo maamuus leh oo Soomaalinimo leh naloo soo dhaweeyay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha wali waxba kama hayno laakiin markaan is aragno ayuu wada hadalku noo bilaaban doonaa Farmaajo waxaan ugu nimid oo reer Hiiraan ah waa noo dhameeyay wixii qabyana waa la dhameystiraa waxaan leeyahay marka Soomaaliya waa u jeedaan meesha arinu taalo arintaasna wax ka qabaday u baahan tahay waxa shaqadaas qaban waayay maamul goboleedyadii waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ugu guuleeyo qabto on ismaqal iyo dhibaatadii on meesha ka saaro oo dawladda ay gacnaha isqabsato in Ilaahay igu hanuuniyo Soomaaliya qaxootiye noqotay dhibaato ku dhacday dalal ajnabi ay tagtay ilmihii baa ka baaba'ay ayagii baa baaba'ay in dib loo fiiriyo loo turaa la rabaa in la iska qabsado lama rabo in la heshiiyaa la rabaa kuwii halkan joogay laftigooda waddan ma haystaan ay baabuurta marto daawo ma haystaan cunto ma haystaan waxaasoo dhan baa la rabay in laga fikiro laakiin ma ahayn in laga fikiro waxaan aniga ma ogolay iyo waxaan aniga ma ogolay
taas maaha masiir Soomaaliyeed laguma dhisi karo waa in wax la isla ogolaadaa waa in wax meel isla dhigaa waa in la isu tanaasulaa sida annaga aanu soo tanaasulno kale on qaranka ugu tanaasulnay war uma joogna meesha dad Soomaaliya nahay nagama xigtaan dawladnimada waxa dawlad u tihiin dadka u shaqeeysan waa ceeb dadkii aad u shaqeeysan hortooda inaad isku qabsataan waxaan leeyahay marka farmaajo waa isaragnay arrintaas waxba kama uu qabo Soomaalinimo uu istaagay ra'iisul wasaarahana insha Allah waa isarki doonaa asagana waxaan leenahay Soomaali fiiri u istaag Soomaali wixii ku dhibay laq hasiideyn wax badan oo ku dhibo waa jiraan waa ognahay laakiin laq haddaadan laqi karin waxaan ku dadaalaynaa inaan wax isu sheegno wax isu sharaxno si wanaag loo gaaro marnaba looma dul qaadan karo isqabqabsi dawladda hore iska qabsatay farmaajo tii ka horeysay tii kale iska qabsatay mid walba iska qabsata yani dhibaatadaas isqabqabsiga leh oo daba dheeraatay waxay ku dhacaysaa ummadda Soomaaliyeed markay ku dhacaysana waxay ugu dhacaysaa qodobadan soo socda socially economically iyo politically ugu dhacaysaa macnaheedu markaan fasiro mujtamacii ummadii ayuu dhibta ku dhacaya siyaasiyan gaaladii isku keendiri jirtay ee ka faa'iideysanaysa annaga Soomaaliya haddaan isu tanaasul weyn ismaqlu hoyno shisheeya naga faa'iideysanay wayna hor istaagnaa marka qarannimadayada lama soo faragelin karo hadda faraha lagu jiraa international ka faraha kula jiro qaran buux ma noqon karna marka si aan qarannimo buuxda u helno waa in annaga isu sabarnaa oo isu tanaasulnaa oo waxa naga weyn iyo culayskana saaran si aan iskaga qaadi lahayn aan ka fikirnaa waxaan warkayga ku soo gaabinayaa waxa waaye Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya cadowgeeda Allah qabto Soomaaliya meel kastay jirto kuwa koreeya Allah ka dhigo dawladnimadana Allah noo ilaaliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh arrinta ciidamada beledweyne la geeyay mowqifkayga waxa waaye ciidan waa ciidan anaan nin ciidan aan ahay ciidankaas beledweyne la geeyay hadduu si Soomaalinimo u shaqayn waayo waa soo celinayna hadduu Soomaalinimo u shaqeeyana waa ciidankii aan u baahnayn